حديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه. حديث كاس أيان إن شاء الله تعالى كلمة ذي نمانتا يكسب سنة دونتا وحانسا جعلها إن ير وإسكو حيره هردعا إن كوريسيو وحاكمدها أحاديثتي أينو كلمات كان إسكو براروجين إن بعد العصر mid ka midihii wuxuu ka hadlahayay adduunyadu sida aysan qiimo ilaahay ula lahayn ولهذا فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ما دام أنا أكتيس قيمة كلهين إلهي عد وجعلي ونكسن الدنيا دواسية عد آنو جعلينا ربي سبحانه وتعالى واسية سيدا غالب كأنا عد آنو إلهي جعلين وأن طريقي سي وناقيس أن هينبا الدنيا ذو كبالانتاي halkaa waxaynu ka tilmaanay casharkii isaga ahaa inay xadiidkaasoo muujinayo isagoo nusuus kale lagu daray siday adduunyadu aanay qiimo ilaahay agtiisa ugu lahayn subxaana wa tacaala haddii ay ilaahay agtiisa kanaaco garabkeed ay miisaan iyo culayskeeda qiimo haddii ilaahay agtiisa ka lahaan lahayd qof ilaahay caasiyey oo ku kufriyey adduunyadan koob biyo ah lagama siiyeen gaajo iyo oon buu uga dhiman lahaa laakiin ilaahay qiimaanay lalahayna waa bakti oo baktiguna haadi iyo xayawaanka iyo cid walba soo martaa cunto waxaa kale oo ka mid ahaa axaadiistii aynu qaadanay nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu inoo sheegay ilaahay jala wacalaa ardada inuu weelal ku leeyahay weelasha ilaahayna quluubu cibaadihi asaalixiin dadka saalixiinta qalbigooda quluubta saalixiintuna ma sinna qalbiba qalbiguu ka jilicsan yahay oo ka dabacsan yahay oo ka nugul yahay oo wacdiga iyo waciidka uga nugul yahay buu ilaahay kasii jecel yahay subxaana wa tacaala ujeedada aan labada arrimood u samaynayna waxaa weeye arrintan laga hadli doono dhinac waxay inama muujin doontaa dad qiimo iyo sharaf adduuniya aakharaba lahaa hase yeeshee duruuf iyo dhaqaale xumo iyo adduunyo xoolo aanay gacan ku haynin darteed xaaladdu heerka ay la gaadhay inay dhinac inooga muujiso oo taa macnaheedu uu noqon doono inaanay adduunyadu qiimo lahayn maadaama dadka sida akhyaarta u qiimo badan ay ka qatanaayeen inaanay qiimo lahayn dhinaca kale dadkan taariikhdooda iyo siiradooda marka laga sheekayo dadka saalixiinta oo saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waradia allahu canhum ajmaciin ay horgal iyo kow ka yihiin waa waxyaabaha qalbiga lagu jilciyo waxyaabaha quluubta jilciya oo riqada iyo jileeca ay nusuustu ammaantay lagu gaadho waxaa ka mid a siyarka iyo qisaska dadka saalixiinta ah dadkii wan wanaagsanaa taariikh nololeedkooda oo la fiirisay ay cibaadaysan jireen si adduunyada ula qiimo darayd waxaa laga dhaxlay oo laga faa'iidaa in uu qalbigaagu uu jilco oo uu soo dabco oo markaas sifada qiimiga badan aad ku gaadho xadiidka haddaan usoo noqono fadaalat ibnu cubaydillaahi radia allahu canhu saxaabigan wuxuu leeyahay waxaa dhici jirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu dadka tujinaya salaadaha jamaacada oo masjidkiisa sharafta badan sala allahu calayhi wasalam uu dadka ku tujinayo rag baa daadan jiray salaada iyadoo lagu jiro salaadoo lagu jiroo loo taagan yahay rag baa daadan jiray oo taagnida ka dhici jiray saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam dadkii ilaahay jala wacalaa ardada iyagoo jooga jannada loogu bishaareey iyagoo cibaadaysanaya oo salaada u taagan ayay taagnida ka daadan jireen wax kalena taagnida ugama daadanayaana uma taagnaan la-ah ilaa baahi iyo gaajo mooyaan qofku markuu aada u baahdo oo weliba bahashu ay dilooto gebigiisaba intay wiiqdo ayaanu taagnaan karin oo aanu kici karin
say weyd u yihiin oo ay u caatoobeen siday caloosha u maran tahay si ay baahidu ay u joogtaysatay u dilootay salaad intay istaagaan iyagoo nebi maxamed la tukanaya calayhi salaatu wassalaam ayaa taagnida laga daadan jiray min alfaaqa min alkhasaasa gaajo iyo baahi darteed ayay dhulka ugu daadan jireen wahum asxaabu sufa buu leh waa dadkii asxaabu sufa la dhihi jirayoo magacaas ku caanbaxeen ilaa 70 ayaa lagu qiyaasaa abu hureyra radiallahu canhu oo ka mid ahaa ayaa wuxuu leeyahy waxaanu ahayn qiyaasta ilaa 70 ruux baanu ahayn oo muhaajiriinta u badan dadkii ilaahay dartii u soo qaxay inay ilaahay jalla wacalaa raalli geliyaan dalkoodii iyo dadkoodii iyo duuniyadoodiiba uga soo tageen xubban lilaahi subxaanahu wa tacaala wa nusratan linabiyihi sala allahu calayhi wasalam wa diini jacaylay nabiga jeclaayeen ilaahay ay jeclaayeen iyo oo nabiga jeclaayeen u gargaar iyo u heelin iyo garab istaag diinta ay garab istaagayeen ayay dadkoodii iyo duuniyadoodiiba iyo dalkoodiiba uga soo tageen waa dad marka halkaa ku xidhxidhan oo ku dabran oo aan dan iyo ujeedo kale midna aan lahayn duunyo u foofta iyo mid u soo xaroota midna aan lahayn deegaan iyo guri aan lahayn dab loo shida aan lahayn waana muhaajiriin intooda badan muhaajiriinna waad garanaysaano fi lqur'aani alkariim sida loogu qaadaa dhiga iyo ammaantooda nabigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi saxaabiga fadaala xataa yaquulu alacraab ilaa dadka reer miyiga ah oo iska soo tukaday oo saxaabada ah oo iska soo tukado iyagoo aan magaalada deganin oo xogta aan haynin oo magaalada daafaheeda iyo dacaladeeda ku nool dadka markay yimaadaan ama reebaadiyaha iska caadigabe meesha maraya ayaa waxay dhihi jireen haa-ulaa'i majaaniin kuwan way waalan yihiinoo salaada markii ay galaan jin iyo waxbaa kusoo dogo wayba suuxaanba ma oga ragganu inay baahi iyo gaajo intay la taagnaan waayeen ay la daadsan yihiin ma oga waxay u qaateenun xoogaa salaada dhexdeeda intay qoontii iyo wax ku yar kaceen inay sidaa marka ay la suuxeen ay daateenba u haystaan waa nafs alqisa abu hureyra oo ka mid ah markuu qisadiisa ka sheekeeya keligii waxaan ku idhahdaay waa intaasoo cilmi aan hadda inooga tegayoo tallaabadii la qaadaba abu hureyrada lagu hayo waxaan xasuustaa weli abu hureyra radia allahu canhu mimbarka rasuulka sal l iyo guryihiisa oo isu dhowaayeen dhexdooda anoo intaan ku dhacay oo suuxay reebaadiyuhu intay isoo maraan halkaa luqunta iyo kurka igaga istaagi jireen laana dhaqan caado waxay iska dhaadhicyoonoo jirta dhexdooda qofka hadduu jin iyo wax ku dhaco ama suuxdin ku dhacdo waa lagu istaagaa adoo kabtaada qaba yaa meelaha lagaga istaagaa marka ninkan gaajada la rafanaya la suuxay waxay u haystaa nin jin iyo qooni ka dhex kacda oo marka reebaadiyu waxay dhihi jir wallahi kuwan waa kuwa waalwaalan oo show waxayba u marmarsoonayaan xataa waxay sileen yaa idin fursad idin siiya aad luqunta kaga istaagtaan sawirkaasaa laga haystaa xaqiiqadan waxay tahay dadkan gaajo ay la suuxayaan oo la dhacayaan oo cibaadadii ula taagnaalaya nabigu sal alla alay slam faidaa qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam asalaa salaada markuu nabigu dhammeeyo oo assalaamu calaykum yidhoo ka baxo insarafa ilayhim ilaan waa la socdaa waa ogyahay kii ku xigay isaga ku xiga baa dhici kaa midigtiisa taagan baa dhici kaa bidixdiisa taagan baa dhici ku kala gadaal ka dhici xogta waa hayaa markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad toonana ma ah waa joogto salaad walba rag baa daatoo taagnaan waaya nabigu sal alla alay wasalam markuu salaada ka baxo waxaa aada u damqi jirtay ama u taabanaysay dadkan ilaahay dartii usoo hijrooday diinta ilaahay inay u hiiliyaan usoo hijrooday haddana baahi iyo gaajo la taagnaan la oo la daadanhaya nabiga sala allahu calayhi wasalam xanuun badan bay ku haysay arrintaasi xanuun aada u badan ayay ku haysay laakiin waxba gacanta kuma hayo nabigu calayhi salaatu wassalaam wax gacantiisa ku jira haba yaraatee ma jiraan oo aba haba yaraata uu ka haqranhayo ma jira waxba waa ulayahay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam
cidda marka dadka salaada dhexdooda daadanaya gaajo la daadanaya cidda waxba u helela waa afdalu khalqi illaahi calayhi salaatu wassalaam oon isna gacantiisa waxba ku jirin bal ay dhici 3 habeenoo isku xigtay inaan guryihiisa dab laga shidin bal ay dhici jirtay akthara min dalik nabigu sala allahu calayhi wasalam habeenkii intuu gaajo gurigiisa la joogi waayo ilaanay gaajadu fa innahu bi'sa dajiic wax qof gogol la gala waxa ugu shar badan oo ugu dhib badan waa gaajo wey qof aan jiranayn oo cabsi haynin waxa intuu la seexan waayo caaw dhan la ilgalacleeyo oo la galgashaay oo waa berigu la dheeraaday waa gaajo wey nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu gaajo gurigiisii la joogi waayay ayuu habeenimo ka soo baxay banaanka bal iska socsoco isagoo banaanka socda ayuu wuxuu la kulmay saxaabi kale yuu noqon doonaa talo saxaabigaas Abu Bakar buu la kulmay radiyallahu anhu waa isna banaanka wareegay war maxaa kugu dhacay yaa rasuulallah gaajaan waxaan cunaa waayo gaajaan guriga la dhex joogi waayo saasan banaanka la socsocdo haddana Umar radiyallahu anhu war Umar war adna waa sidee waxaan cunaa waayo gaaja guriga waa qaxbana waa barakacbana gaaja ay soo burisayo meeshii waa banaanka la wareegay habeen kala badhki duruufta kulmisay nabi maxamed calayhi salaatu afdalul khalq iyo labadiisa saaxiibo ummadda ugu fadli badnaa mid walbana isagoon midka kale ogeynay ay gaajo gurigiisa ka soo burisay oo ka soo barakicisay ma adduunyadaas qiimo leh oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam gaajo uu kala seexan lay oo Abu Bakar radiyallahu anhu uu gaajo kala seexan lay oo Umar radiyallahu anhu uu gaajo kala seexan lay oo muhaajiriintii gaajo darteed ay salaada dhexdeeda la suuxayaan oo la daadanayaan adduunyada wax qiimo leh waa baqti way waa baqti way markuu nabigu salaada ka baxo sallallahu alayhi wasallam ayuu u tagi jiray oo la fadhiisan jiray wax uu afka ka siiya uma hayo laakiin wuxuu u hayaa wax moralkooda iyo damiirkooda iyo iimaankooda kobcinaya oo xanuunka iyo dhibka iyo dareenka hayaay wax ka fududaynaya wuxuu nabigu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam law ta'lamuuna ma lakum 'inda Allah nimankiinan asxaabu sufa gaajada la daadanaya la suuxaya la taagnaan la haddaad ogaan lahaydeen waxa ilaahi agtiisa idin yaala oo karaamo ah oo darajo ah oo jannooyin iyo risqi waasaca ilaahi idinku talagalay haddaad ogaan lahaydeen faqrigan iyo gaajadan aad u adkaysanaysaan oo dar ilaahi aad ugu adkaysanaysaan waxa ilaahi aakhara idinku bedelo nicmo haddaad ogaan lahaydeen la ahbabtum an tazdadu faqatan wa haja waxaba jeclaan lahaydeen oo aad dooni lahaydeen in baahido halka hadda ay joogto in ka badan inay idinka sii gaadho gaajo intan ka badan lahan intan ka badan xanuun intan ka badan dareen dhibaato intan ka badan ayaaba sii jeclaysan lahaydeen sababtoo kullama dhibkan uu idinku dhacood ku sabirtaan oo ilaahi ajar kaga doontaan darajaadkiina iyo waxa ilaahi idin diyaarin hayo ayaa waxaan la soo koobi karin asxaabu sufa ayaan doonayaa inaan dhowr kalimaado aimadu ay ka yidhaahdeen inaan waxyar ka tilmaamo alimaam alxaakim abu cabdillaahi naysaabuuri waa caalimka min culamaa almuslimiina macruufna ku ah qofkii xadiidkiiyo culumtiisa oo kutub aada u tiro badan qoray muslimiinta ay aada iyo aada runtii ay u nacfisteen ayaa waxa uu leeyahay bacdu ahli lcilmina waxayba qabaan tadwiinka cilmulxadiidka ee rasmiga inuuba isagu aabba u yahayo alimaam raama hurmusi inuu isagu ka sita ayayba qabaanba marka la isu barbar dhigo kutubtooda imaamkaasa waxa uu leeyahay raxmatullaahi calayh ta'ammaltu hadihi alakhbaar alwaarida fi asxaabi suf waxaan aada ugu kuurgaloon ugu fiirfiirsaday buu yidhi nusuusta iyo akhbaarta ka waramaysa ahlu sufa nimankan salaada dhexdooda radiyallahu canhum daadanaya suuxaya
akhbaarta iyo wararka ka soo arooray tilmaamahooda iyo magacyadooda iyo tiradooda ayaan aada nusuusta aan u dhexgaloon u fiirfiirayba fawajadtuhum waxaa ii soo baxday oon helay buuhi natiijadii dabagalkayga iyo baaritaankan sameeyey waxaan ka helay buu yidhi inay dadka yihiin min akaabiri asaxaabati radia allahu canhum waracan wa tawakulan cala allah saxaabada kuwa ugu sitay ugu waaweyn inay yihiin waracnimada xalaal miirashada adduunyo iska ilaalinta dadka ugu sita inay yihiin kuwa ugu waaweyn oo ugu sita inay ka mid yihiin iyo wa tawakulan cala allahi subxaana wa tacaala tala saarasho iyo kalsoonaansho ilaahay lagu kalsoonaada subxaana wa tacaala oo lagu qanco adduunyadani wixii ilaahay kaaga qoray inay kollaba ku soo gaadhi laakiin baahi ku qabatay iyo duruuf kugu timid midna inaanay sabab u noqonin inaad intaad xadda tallowdo aada xaaraan quudato dad marka is-ilaaliyo ahayn waan baahanahay baktiga looma cunay soomaali ku mahmahdo waan baahanahay baktiga looma cuno gaajada darteed ma aanay noqonin dad ay mawaaqiftooda iyo mabaadi'dooda iyo thawaabidooda ay wax ka bedasho ilaahay bayna jalla wacalaa 100% tala saarteen oo ku kalsoonaadeen allahna jalla wacalaa tawakulka soo moog qofka cibaadaadka ilaahay lagu caabuday ee qalbiga kuwa ugu sarsareeyo weeyaan tawakkulu cala allah subhanahu qofku inuu ilaahay ku kalsoonaado oo waxa ilaahay gacantiisa ku jira uu kaga kalsoonaado waxa isaga jeebkiisa ku jira waxa jeebkaaga ku jira gacantaadu gaadhay kalsooni badan baad ku qabtaa sawma kalsooni aad u badan baad isa siisaa laakiin inaad calfan iyo in kale lama ogaado waxa aad 100% isku halaynaysa ee aad lama huba inay meel kula gaadhiyaan inaad calfantoona lama oga qofku marka waxaa la dooni waxa ilaahay jalla wacalaa gacantiisa ku jira inuu kaga kalsooni badnaado waxa isaga gacantiisa iyo jeebkiisa ku jira dadkanu saasay ahaayeen law annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr bi nabi sallallahu alayhi wasallam xataa shimbirta inaga tawakkul iyo kalsooni badan ku tiirsanaanshaha ilaahay lagu tiirsanaado ee la isku haleeyo lagu kalsoonaado shimbirta xataa inaga badisa makhluuqaadka ilaahay baa soo moogid xayawaanaadka aynu inagu sida kale inagu xisaabsan inay inaga cibaadaad badan yihiin soo moogid waxa halkaa ina dhigay oo dhul gaala inagu hahayo 100% waa tawakkul xumo weyn risqiga ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala ilaahay risqi wuxuu kaa siiyey dad aan kalar kula wadaagin oo aan culture kula wadaagin oo aan luqad kula wadaagin wax idin jamciya wax idin kulmiyo bani aadamku waxyaabaha isku qaraabsadaan wax kamid ah idin kulmiyo bani aadamnimada ka sokaysa ma jirto ومع ذلك الله سبحانه وتعالى باكو قصبي أو إساقا جل وعلا رزقي أو كو قري جل وعلا إساقا كاسي إلهي جل وعلا رزقي كوما واين ماشا تكتبنا وكسو قاري لكن وإنغا توكل حما إنا يسوى ضمضا عذر رضا لغا نحلا وحاكمدا إلهي كو كالصوناشيه لغو قبي أيا ماشا كبحاين بضلقا qofku markuu ku fikiro isiraada meel kala tag su'aasha ugu horeyso Allah yaa ku beeli la ilaaha illa Allah madaxa qabso bahalka beelka iyo kunguriga leeyahay baa on daaqad baa inugu furan waja'ala faqrahu bayna aynayhi ma maqal jirtay xadiidka faqriga halka laga saaro ishana arkayo hadaa soo jeedo ku saaray hadaa jiifto waad ku riyood waja'ala faqrahu bayna aynayhi dibaa ina haysato qofku marka wuu sasiba ha yaa uu nixiyo marka kadib uu dib iska qoon Allah ilaahay baa risqiga bixiyo si yar hooso yar caato sakaraada ma ilaahay baa iska bixiyo ma sha Allah waa xoqasho ku yeer jirto ruux yar waabano yar gagaban wax kala ma wax saayro gali waa tawakkul xumada wuxuu marka imaamku uu leeyahay dadka ugu tawakkul badan ilaahay ugu kalsoonaansho badan subhanahu wa ta'ala
وملازمة لخدمة الله ورسوله وقنا لازم سجوكتا إلهي دينتي سأو خدمة شقك لما قبطان هل كاسي فرديان إلهي انت يكالا كل ميان سبحانه وتعالى وحي قوان سادين قاعدش يباهي كالصوء تمادا ثوابتي يمبدأ أي ميشو يمادان إني دينتي وقرقاران إنان مرنا آني كأينان كنقنقاق سادرتين عيدا إسكهيغان وهم مساجد كافرديان بأهايب waxyar hadduu soo yeedho waa heegan gaajo iyo baahina waa la daadanay arrimahan oo kale marka laga sheekaynayo dadku waa muhiim inay wax badan ogaadaan taariikh nololeedkii diinta loo soo maray diintan waa loo soo halgamay dad baa yacni xili iyo xoolo iyo xandha waxay haysteen oo dhanba ilaahay dartii iyo diintaas inay dadka soo gaadho quraankuna marar badan waxaa dadka la xusuusiyaa muslimiinta waxaa la xusuusiyaa taariikhdoodii bilowga ahaa waa aayad quraan wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaas faawaakum waayadakum binasrihi warazaqakum min adayf saxaabada si mubaasharatan ah loola hadlo innagana taariikh inoo qoran oo la inoo xusuusinayo dadkii marka inta lalaha takhaafuuna an yatakhatafakum annaas ayay ka mid yihiin saxaabadan aynu ka warramayn wuxuu markaa sheekhu leeyahay ikhtaara allahu lahum ma اkhtaarahu linabiyihi sala allahu calayh min almaskanati walfaqri waltadaruci licibaadati illahi caza wajal wa tarki addunya liahliha ilaahay wuxuu dadkan u doortay asxaabu sufa wixii uu nebigiisa u doortay sal lla ly slam rasuulka waad ogtihiinoo faqriga iyo dhibaatada iyo gaajada heerka uu ka gaadhay wax laga sheekeyn karma ilaa maraaxisha qaarkood uu nebigu sal lla ly slam caloosha uu dhagax ku xidhan jiray gaajo darteed wixii nebigiisa loo doortay uu u doortay ilaahi jala wacala ayaa iyagana loo doortay oo arrintaa nebigayba la wadaagaan calayhi salaatu wassalaam wa tarki dunya liahliha iyo adduunyadan inay farahaba uga qaadaan dadkan ay baacsanhayeen raacdaysanhayeen meeshay gashaba ka dabageli oo iyaguna khatar ugu jira inay aakharo seejiso xadiidkaasi marka wuxuu ina tusaaleynhayaa dadkeennii hore oo ilaahay jala wacalaa adduunyada iyagoo jooga jannooyinka loogu bishaaraynaya diinta ilaahay jala wacalaa u gargaaray oo heerkaa soo gaadhsiiyey duruufta ay ku noolaayeen maanta innaga markaan iska hadalno wadcigeennu wuxuu aada u shabahaa qoraal yaroon maalin dhaweyd nin uu soo qoray meel soo dhigay oon arkayay qoraalkaasi ninkaa wuxuu leeyahay naciishu fii caalamin caalam baan ku noolahay buui yamshi alfaqiiru amyaalan liyaxsula cala aطacaam caalam waxaan ku noolahay qofka faqiirkan waxba haysanin oo intaas oo mayl iyo intaasoo kilomitir uu socon si uu luqmad iyo wuxuu afka geliyo nafta ku celiyo si uu u helo intaas oo mayl intaasoo kilomitir buu soconba baynamaa yamshi alghaniyu amyaalan liyahdama aطacaam waxaa kaloon ku noolahay buuhi isla caalam dadka wax haystaay ee iyaguna intaas oo mayl iyo intaasoo kilomitir ay socon si ay cuntadii uga degto oo xoogaa iskaga fududay ninna waa dharag dhacsi ninna naftaaba hayso halka sidanaba ka dhababa wuxuu intaa la ordaya la nagnag leeyahay meelaad afka wax kaga dhufato amaad ama qola wax cunaysa la kulanta ilaahay kula kulmiya ama qoom wax kuu taagaa ama amaad khayrun ka dul dhacdaa intaasoo kilomitir buu carari oo nagnaglayn maanta o dhan ku kalena intaa oo kilomitir buu isna carari oo nagnaglayn min keli ah inuu dharag dhacsadoo dhowr goor uu daaco kookadii way kari weyday moogta kookadii iyo sbaraydkii iyo seven upkii iyo ciidamadii aan naqaanay oo dhan baashii dejin waayo oo sii bulaysaa un marka daba muxuu sameynayaa caguhu wax ka day ama caadi ha u lugayo hadhowto la yidhaahda miyaad ogtahay sawdoo dhan baan kusoo wareegay ha yidhaahda
ama hadduu is yidhaahdo subax walo ama dadka kula yaaban kan un kallahaya caraabahayo baalkan jiimka intii la fuulo oo baalka bal ii tira imise kilomitir baan orday oo nagnagleeya maanta oo dhan gaaf ilaa markii dambe heer ay gaadhay maalin dhaweyd baan arkayee kolkol baa jirta moogta wax kaa qosliya aad arki ood la yaabto qolyo Soomaali hadda sheegi maaye qolyo Soomaali marka dambe waxaa la soo saaray show culayskuna uu fuulay oo naaxay oo kilomitirradii ay isgaadhgaadheen baalka jiimka si la isugu fududeeyana aan aqoonin show ma garate oo marka dhowr goor markay tallaabsadaan bicirka intay u kacaan now ay meesha ka dul yeedhayso yani xataa heer waxaa la gaadhay ma garan heer xataa waxaa la gaadhay baashii intay cudur noqotay dheregtii baa cudur noqotay si baashii loo dul dhoweynayo la isu kor saarsaaray intaasoo kala nooc markii dambe hadda wuxuuba noqday ganacsiyada ugu suuqa fiican buuba noqday sooma ganacsiyada sidee maxaan ku dheregta la isaga dhimaa he marka horeba maba la iska yaray maxaa loo dhimi kolka horeba ma baasha limitkeeda marka hore waa la cabayn waa la buuxin haddana maanta dhan waxaa lagu rafaadi sidii wixii looga kala fududay lahaa baynamaa markaad fiiriso yacni mujtamacii inagu aynu ka soo jeednay xataa aynu ka dhalanay maalin walba intaasaa gaajo u dhimatay maalin walba intaasaa sidaasa maalin walba intaasaa sidaas waxaan uga jeedaa ikhwaani adduunyadan wax qiimo ama leh wixii afka la geliyo haddaabana dee kookada iyo jiimka iyo kilomitirada la soconaya haddaysan kuba bixinba musqulun baa la geyn wax qiimo lama adduunyadan wax qiimo lama mar haddaanay qiimo lahayn oo nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam oo afdalu lkhalqi ah uu ka gaajaysnaa oo saxaabadii oo afdalu nnaasi bacda annabiyi sala allahu calayhi wasalam ahaa ay gaajada ay salaada iyagoo ku jira ay suuxayaan walaalayaalo adduunyo wax la israaciyo ma aha wax u qalanta inay qofkaba la wareegto oo isaga ay brograam garaysana ma aha waxaynu u baahannahay waxani waa sahaydii aakharo ya waxani waa sahaydii aakharo weyaan sahayda aakharo wixii saalixoo ku habboon aakhara in loo sahaydana waa inta xalaasha adduunyadan aynu godkee gashaba ka dabagalnay aynu iska yarayno horteen waa la gaari waaye inaguna gaari mayno ruux walba suu u daba nagnaglayn isagunbaa ka tegaya kabuhu kaga dhammaan sidaa darteed siduu shaacirka uu yidhi ina lilaahi cibaadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالله التوفيق.